waxaa dhacday beri dhaweyto imkana raggaan u yara bayre waxaan la soo gashay dabayl la yidhaahdo hindiya xaydarabaad baa dabaysheeduna soo martay raggii xaggaasunbaa loo sii socdaa kii furaaba xaggaasunbuu qabanayaa waar hebel mee xaydarabaad waar hebel kale mee xaydarabaad waar hebel kale mee xaydarabaad markaasay raggii waxay u ashkatoodeen sheekh cumar faaruuq ilaahay subxana wa tacaala ha u naxariisto dembigiisa ha dhaafee nin aad u xikmad badanna wuu ahaa markaas waxaan sheekhow gabadhii soomaalida waannu hayn kari la'nay qolyo qabqabow oon kaa daba hadlayn baa dhul halkaasa lagu sheegay marka qolyahaas ayaannu qabanaynaa ee bal arrintan ka warran cabbaar buu aamusay oo madaxa hoos u dhigay markaasuu niman yahu dhegaysta ninka dameer la yidhaahdo ayaa waxaa lagu yidhi war dameerow marka aad dameerta wax ka doonto waa tanay nafta kuu keento ee ay ku harraatido ee cabaadkaaga laga baxo maxaa ku wareeriyey ee qolyaha qabqabow iyo baqlaha iyo geenyooyinka ay dadkaa aamusan maxaad isaga doonan weyday markaasuu wuxuu yidhi niman yahow dhibta aad aragteen waxaan u maraa dirka dameer yaanu dabar go'in wallaahi in badan oo inaga midu caqli dhaama ninkaasi niman yahow buu yidhi dhibka iyo tacabka aad aragteen waxaan u maraa dirka dameer yaanu dabar go'in marka aad gabadh ummado kalaa guursato kaaga hore waa haafkaas waa 50-50 wuu barxan yahay ka ku xigaana socoy gabadha soomaaliyeed haddaa imka waxaad doontaan isku samaysaan oo kala tagtaan xaggay qabanaysa xaggaysa la tegaysaa ilmahaagii meel la tegi mayso laakiin tan xaydarabaad bay la tegaysaa ama meelo ka fog waxaa dhacday inan yaroo soomaaliyeed ayaa inan yaroo jarmalah la boodboodayey sidii ubax yar beerta magaaladan munikh oday jarmalah oo gaboobay oo isagiiyo islaantiisu ay halkaa ku laydhsadaan baa maalinta dambe u yeedhay isagoo kan yari bidhaa uu hayo oo xabiibi xayaati ku jira oo marba geed laga dulboodayo marba meel la galgalanayo markaasuu wuxuu yidhi maalin waxaan doonaya inaad adigoo keligaaya inaad ii timaado markaasuu yidhi waaya inankii yaraa soomaalida maalintii dambe u yimi odaygii wakhtigaa halkaasaan fadhiistaa wakhtigaa ilaa wakhtigaa halkaasaan fadhiyaa ii kaalay buui maalin madano si gaar aynu wada sheekaysanay markaasuu wuxuu yidhi adeer waxbaan kuu sheegayaa anuu ninkaa weyn baan ahay ee jarmalka ah islaantayda yareedna waa adigana arkaya waa tan igu dul gabooday nin yar baa tahay waxaan kuu sheegayaa dumarkayagu sida ay yihiin inta aad xoogga leedahay ama aad xoola hayso inta aad xoogga leedahay ama aad xoola hayso gabadha yadu waa taa kula bidhlaynaysa ee marba geed aad ka wada dul boodaysaan iyadoo xabiibi xayaati ku leh laakiin maalinta labadaas ay kaa dhammaadaan lix minid baa hadhay awowga gabadhani kuma taqaano bal waxaad eegtaa buu yidhi bal orodoo
jarmalkaa aad joogto oo dhan bal soo eego waxaad soo heshaa nin midab kala ah iyo gabadh cad oo sida aniga iyo islaantayda isku aggaboobay oo halkaa wada fadhiya bal orodoo soo baadh buu ku yidhi orodoo soo baadh heli maysid markaa waxaan ku leeyahay buu yidhi adeer intan tagoogtaadu ay awoodda leedahay gabadh dadkiinna addoono gabadh dadkiinna addoono oo hadhowtana ay isku dulgabowdaanoo oo a wada joogtaanoo ilaahay ubad idinkala siiyo hadhowtana meelna idinku kala dhaqaaqina halkaa aad nebiga ku wada sallidaan calayhi salaatu wasalaam markaa reeraheennu waxaynu ku badbaadin karraa horta innagoo guurkeenna hagaajinna iyo waxaynu u guursanayno midda labaad innaga oo ku dadaalna inaynu innagu isguursanno oo hablaheenna aynu guursanno oo aynu ku qanacno hablaha ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala habnaheennuna ilaahay ay kaga baqaan raggooda oo inantu ay isku daydo sidii ay ninkeeda u kasban lahayd siday u raalli gelin lahayd waayo jannadeedu ninkanay ku jirtaa nebigeennu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam inanta inuu ninkeedu kaga xaq badan yahay aabbaheed iyo hooyadeed waxaa dhacday gabadh saxaabiyada ayaa ninkii saxaabigii qabayba wuxuu ku yidhi guriga kama bixi kartid intaan ka soo noqonayo waxaad u baahan tahay reerkaygaa kuu keenaya wax kastoo aad u baahan tahay waayahay bay tidhi wuu dhoofay markuu dhoofay ayaa inantii aabbaheed xanuunsaday walaalkeed baa u yimi walaalo aabbaha wuu xanuunsanayaa kaalayo aabbaha soo siyaaro alla hoogayo ba'ayay balanbalayay may odhanoo hore kamay soo qaadan bahashiiye xijaabkiiyo waxay tidhi ninkaygu wuxuu yidhi guriga intaan maqanahay albaabkiisa ha ka bixi waxaad u baahantay guriga lagu keenaya odaygii baa sii jilcay ninkii nebigii buu u taagsan wuxuu yaa rasuulallah saasaa dhacday walaashay saxaabigii qabay sidaasuu ku yidhi maxaa tala ah inay ninkeeda adeecdaa uga khayr badan saxaabigii buu iska tegey odaygii baa sii jilcay maanta dambe inankii wuxuu isleetani aabbaha tii uu ka kacayey maaha wuu ku soo noqday ninkeedi weliba waxay tiri ninkayga odhan nin albaabkaa ka bax kama bixi karo waxaynu odhan lahay innagu waa doqon weeye indha kale iyo dhago kaleba ma laha meel buu ku xidhayba quful ayuu qirdhim ku siiyey furihiina wuu tuuray aabbaheed baa dhintay inankii u yimi walkaale aabbaha aaskiisii iyo habayntiisii ka soo qayb gal waxay tiri waalo ninkaygu wuxuu yidhi albaabkaa kama bixi kartid isagina weli soomuu noqonin nebigii buu u tago si arrintii buu u sheegay inuu ninkeeda adeecdaa ugu khayr badan buu yidhi saxaabigii baa soo noqday arrintii dhacday bay u sheegtay saxaabigii nebigii buu u tagay alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuula allah saasaa dhacday intii aan maqnaa orodoo ugu bishaaree buu yidhi inuu ilaahay aabbaheed jannada uu geliyey addeecitaankii adiga ay ku addeecday inuu ilaahay aabbaheed jannada uu geliyey addeecitaankii adiga ay ku addeecday
markaa xisaabaheenna aynu dib ugu noqonno is-addeecitaankeenna is-ixtiraamkeenna kala dambaynteenna waa haddaynu doonayno in ay guryo inoo dhaqmaan inay reera inoo dhaqmaan in aynu ummad iyo dad jira aynu noqonno waayo waxaa la yidhi innagu horta jiin adag ma lihin dhaqan adagna ma lihin innagu carruurteennu waxaynu guursannay u ekaada ka Chinese guursada wixiisu waa Chinese ka maxay guursada wixiisu caddaan guursada wuxuu dhalaa waa caddaan ka hindi guursada wuxuu dhalaa waa hindi ka carab guursada wuxuu dhalaa waa carab mid kan dhaqan ma lehinoo mid waliba oo inaga midu halkuu jooga dhaqankeedu leeyahay ka qatar jooga waa qatari ka maraykan jooga waa maraykan ka kanada jooga waa kanadi ka ingiriiska jooga waa ingiriis ka afrika jooga waa afrikaan qolyahan sujooga iyo qaar baanu ka aragnay tabti afrikaanku bay u fakerayaan qolob nin walba halkuu joogo inuu la dhaqan yahay marka taa aynu wax ka bedelno iskuna dayno waxaan wax kaga bedeli karnaana waxa weeyaan innaga oo diinteenna u soo noqono diinteennana isku maamulno diinteennana fahanna barannana sida uu nebigu calayhi salaam u dhaqi jiray dumarkiisa sida saxaabiyaadku u noolaan jireen raggooda in aynu baranno oo aynu dhiganno oo aynu baranno siiradii nebigeenna suubanaa calayhi salaatu wassalaam qofku waxaa la doonayaa in uu yeesho nolosha balaan inuu balaan leeyahay sanadkan maxaan doonayaa inaan sameeyo maxaan doonayaa inaan gaadho imisaan doonaya qur'aan inaan xifdiyo imisaan doonayaa inaan axaadiis xifdiyo imisaan doonayaa inaan siirada nebiga aan barto imisaan inteen doonayaa inaan gaadhsiiyo ma halkan ilaa iyo badar baan doonaya inaan gaadhsiiyo ma halkan ilaa iyo uxud baan doonaya inaan gaadhsiiyo halkeen doonaya inaan gaadhsiiyo in aynu akhrino taariikhdii asxaabta nebigeena subxaanahu alayhi salaatu wassalaam siira saxaaba bal raggan say u noolaayeen si aynu bal calaqal ugu dayanno oynu u hiigsanno waayo iyaga ummad jiil ka khayr badani muu jirin jiil alqur'aaniyi alfariid jiil ka khayr badan ma jiro nimankii xaadirka ahaa ee goobjoogga u ahaa soo degitaanka kitaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi aayad kasta halkay ku soo degtay iyo meeshay ku soo degtay iyo waxay ku soo degtay intaba waan garanayaa buu yidhi haddii aan ogahay inuu jiro nin iiga aqoon badan oo meel safar lagu gaadho joogana waan u tegi lahaa waxbaan ka soo baran lahaa marka waxbarashadiina aynu wax ka beddelno habdhaqankiina aynu wax ka beddelno habnooleedkana aynu wax ka beddelno dhaldhalaalkan adduunyada iyo mujtamacyadan aad ku dhex nooshihiin ama kuwaan ku dhex nool lahay ee maadiga ah ee diintoodu ay tahay lacagtana aynu ka soo hadhno oo hamad aakhira aynu yeelanno waayo kulligeen mid kastoo inaga midi wuxuu ku xukuman yahay dhimasho shakina kuma jiro kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum bisharri waalkhayri fitna kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa cani innaar waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur marka adduunyada sidaa ilaahay inoogu fasiray sidaa ilahay inoogu sharaxay aragtida ilaahigaa aynu ku aragno adduunya macna ma leh waanad ka tegaysaa waad og tihiinoo geeriduna ma taqaanno kana odaya oo cumrigiisii soo qaatay iyo kanaa yaroo weli adduunyadu u cusub tahay geeridu ma taqaanno marka intaynaan baroorannin maalin aanay baroortu waxbayna anfacaynin intaynaan ooyin maalin ooyintu waxbayna anfacaynin intaynaan odhanin rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib la asaddaqanna wa akun min alsaalixiin aynu meesha ka kacno ilahay wanaagga hayna waafajiyo ilahay xumaanta haynaga qabto ilahay inta wadda haynaga qabto ilahay isu kee sakhiro
إلهي سكين سخيرو إلهي هبلهينا إن مدن الله سخيرو odayaasheenna islaamiheenna allah u sakhiro dhallinyaradeenna allah u sakhiro ilahay subxana taala sugan wa sakhiro hay naga dhigo mujtamac wanaagsan oo dhammaantood ka shaqeeya badbaadada mujtamacooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda wajazaakum allahu khayran wasala allahu wasalam alayhi wasaxbi wasalam wa aakhiru dacwaana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilahay subxana taala ha barakeeya hablaha barnaamijkaa wada iyo qolyaha kale waddamada aanu joogno ka wadaba qofka waalina horta Soomaaliya aad buu ugu dhiban yahay qolyaha tagtaga ayuun baana ka warhaya waxa la yidhi ninbaa waala intaana waaqlahayn wareerkan u dhicin markaasaa markii kadib laga soo noqday dulcad iyo darooryo meelihii la wadnaa ciddii garanayse ayaa la isugu soo noqday Burco iyo Hargeysa markaasaa waxaa la yidhi ninkii waryaahe sawdigan caadiga noqday war anigu caadi ma noqonin dadkii baa soo gaadhay buuri anigu caadi ma noqonine dadkii baa soo gaadhay marka waxaan uga jeedaa horta anigu Soomaaliya waan uga dhoof badanahay ina cilmi raage waxaan idiin sheegayaa waxyaabahan soo taabtay waxaa ka mida in aynu haysanno qaran dumay koonfurna waan tegey waqooyina waan tegey labadaba waxaan ku soo arkay qaran dumay aqalada waa la dhistaa dhib ma laha macno badan ma samayso oo imika markaad aragtaba magaalada anuu xamar waxaan deganaan jirnay xaafaddii berigii dambe loo bixiyey Bermuda waxay liqdaba aanay ka soo bixi jirin waan soo dhex maray wax waa la dhisdhisay laakiin waxaan idiin sheegayaa waxaan arkay qarankii inuu dumay inta qarankaa dumay la soo dhisayaana waqti badan bay qaadanaysaa marka ilaahay ha sahlo kow dhaha midda labaad cidina uma maqna ceella uma qodna meel kasta oo aan tegey ama xaggan laanta ha noqoto ama xagga Soomaali weynta ha noqotee dowladuhu waa magacuyaal waa xaqiiqa weeye marka ama sidaa u ogaada ama ismaaweeliya mujtamaciinna idinkaa wax u qaban kara idinkaa u gargaari kara qolada nimka gruubkan la sheegayo London baan kula kulmay beri dhaweyto dhakhtarkan waalida Hargeysa qayb dhan bay u dhiseen oo dadka waalwaalan lagu hayo mintaqadaana gaar kuma ahe waxay doonayaan inay halkaasay ka bilaabeen inay hore u wadaan ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ilaahayna hala qabto laakiin waxa weeye idinka saboorkiinna iyo gargaarkiinna ay u baahan yihiin saboorkuna waa laba nooc qof inuu isagu wax la baxo oo khayrka uu ku darsado iyo inuu ahlal khayrka uu garanayo inuu u bandhigo waan ogahay in badanoo inaga midii waxay necab yihiinba wax weydiinta ama cid nimankan uu garanaya ahla khayrka ah inuu arrimahaasoo kala hadlo war arrimaha kala saaro waxna wax adigu personal aad u weydiisanayso taasi ma wanaagsana waan kugu raacsanay laakiin in aad dadkaaga iyo mujtamacaaga wax u weydiiso ha kala xishoonin in ilaahay wax siiyey oo sita jeega wareega haddii uu ilaahay ku baray waa inaad barato sidaad wax uga qaadi lahayd mujtamaca muslimka ee baahan ee masaakiinta aad u gaadhsiin lahayd ilahay wanaagga hayna waafajiyo ilaahay gruubka hablee isu tegey ee khayrka u kacayna ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo ilaahay subxana wa tacaala ha ku xifdiyo ilaahay ha ku ilaaliyo ilahay subxana wa tacaala iyaga iyo ubadkooda iyo khayrka ay wadaanba ilahay subxana ha ugu naxariisto
waayo sadaqadda iyo khayrka ilaahay adigu iyo aniga ayuu nagu ilaalinayaa taa aynu fahanno